horta xukun ma aha waa qaraar waxay saaka maxkamadda soo saartay qaraarkaas dacwadaasi marka muddo socotay waxa inankaas ku eedeysnaan wuxuu ahaa koob shaah oo la yiri calanka Soomaaliya ayuu ku sameeyay runtii horta arintaas baan saxayaa inanka ma aha cid wax ku sameysay calanka amba koob shaah wax ku sameysay inanka yiri meherada Jumeera ayuu tagay waxaan u doonayay dhalinyarta reer Soomaaliland qaar kamid ah waliba reer Hargeysa ayaa kaxeeyay oo u casho geeyeen markii hotelka tagay dhalinyar badan ayaa garatay oo ku soo yaacay waxa dhamaanteen waa madaxweynaha TikTok aad baa loo soo dhaweeyay marka inan kamid ah inamadii kusheenada ku jiray ayaa shaaha sameeyay wuxuu isagu dalbaday iyo wuxuu soo ku talagalay midna ma ahayn dhinaca kale waxa lagu soo eedeeyay inankaasi inuu qarannimada Soomaaliland wiiqayay iyo inuu boorinayay in sharciga laga hor yimaado laba eedood oo isa saaran bay haayeen muddo dacwadu socotay hase yeeshee saaka ayay soo gabagabowday waxaana maxkamaddu qaraarisay in 48 saacadood gudahood lagaga saaro dalka wax xukun oo kale ku dhacayna ma jiro saasba xorriyadiisa loogu celiyay laakiin halkii ahayd suuqa in lagu siday xorriyadiisa taam loo celiyo ay maxkamaddu waxay qaraarisay 48 saacadood in immigration ku kaga saaro magaalada amba Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan